salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. muuqaalkeenan waxaan idinkula wadaagaynaa 10 calaamadood oo ka mid ah calaamadaha ugu waaweyn ee saacadda qiyaamaha. waxaana xusid mudan 10ka calaamadood in la yiraahdo calaamatul kubra, laakiin waxaa jira ashraadu saaca waxa la yiraahdo calaamaatu suqra iyo kuwo kale oo la arkay maanta. haddii la tiriyana magaalo walba waa laga helayaa calaamaatu suqra. in la socda ilaa dhammaadka muuqaalkan. laakiin inta aan gudaha u gelin subscribe dheh kanaalka oo nagu soo bir haddii nagu cusub tahay, hana naga hilmaamin inaad like saarto muuqaalkan. taasi waxay noo tahay dhiirigelin iyo joogteynta muuqaalo noocan oo kale ah, iyo in muuqaalku gaaro asxaab badan oo ka faa'iideysta. sidoo kale sii share gareeya oo la wadaaga asxaabtiina ugu yaraan hal qof si aan u helno asxaab badan oo ku xirma kana faa'iideysta barnaamijyadeena. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri saacadda qiyaamo ma dhici doonto ilaa aad aragtaan 10 calaamadood. calaamada koowaad waa qiiq ka yimaada dhanka iyo samada. calaamada labaad waa masiixu dajaal oo mari doona adduunyada oo dhan, isaga oo dadka ka dhaadhici doona inuu yahay rabbiga abuuray. wuxuuna wataa wax u eg janno iyo naar. nabiguna wuxuu yiri qofkii raaca wax jannada u eg oo wato ayuu gelin doonaa, halka dadkii inkira oo yiraahda rabbi ma tihid kaafir dajaal ayaa tahayna wuxuu gelin doonaa naarta. sidoo kale nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri qofkii akhristaa 10 aayadood ee suuratul kahfi maalin walba, rabbi subxaanahu wa tacaala fitnada dajaal wuu ka badbaadinayaa. wuxuuna saameyn doonaa oo cagta mari doonaa koonkan adduunyada ilaa marka laga reebo Maka iyo Madiina, halka xadiista qaarna ay sheegayaan ilaa 4 meelood inuusan geli doonin. buurtii nabi ciise calayhi salaam lagu waxyooday ee ilaahay subxaanahu wa tacaala nabi muuse kula munaajooday magaalada Maka iyo magaalada Madiina. qudusna ma geli doono iyo masjidul aqsa. laakiin dadka sharta badan ee munaafiqiinta ah ee Maka iyo Madiina ku dhuumaalaysanaya ee ku noolna ayaga ayaa dajaal banaanka ugu soo bixi doono. calaamada saddexaad waa dabaabad ka soo bixi doonta dhulka buurta Safa la yiraahdo in Safa wal Marwa. saqrab bay ka soo bixi doontaa, waxayna mari doontaa adduunyada oo dhan. qof walbana way shaabadeyn doontaa, qof walbana wuxuu yahay ayaa ku qarbi doonto. calaamada afraad waxaa soo degi doona nabi ciise calayhi salaam isagoo xaakim ah, wuxuuna shariicada islaamka ku xukumi doonaa adduunyada, wuuna cadaalad fari doonaa. waxaana adduunyada ka dhammaan doona dulmiga, galdarada iyo kibirka. sidoo kale salibka gaalada ay yiraahdaan nabi ciise lagu daldalay wuu jebin doonaa. cadaaladda islaamka ayuu adduunyada ku xukumi doonaa. calaamada shanaad waxaa soo bixi doona qoomka la yiraahdo Yaajuuj wa Maajuuj. waa 2 ummadood oo ku abtirsada Yaafith bin Nuux, halka ummadiina ay tahay 400 oo kun. mid iyaga ka mid ahna ma dhinto ilaa uu arko 1 wiilood oo dhalay oo qaangaaray oo dagaalka galay. waxaana lagu soo fasixi doonaa adduunyada. calaamada lixaad waa adceeda oo ka soo noqota meesha ay u dhacdo. waxaana xusid mudan in qofka aan toobad laga aqbalin ilaa inta uusan gaarin 2 marxaladood. marxaladda koowaad inta aysan nafta soo gaarin kalxamaha ama dhuunta, halka marxaladda labaadna ay tahay haddii ay qoraxda ka soo noqoto galbeed qofka toobad lagama aqbalo. calaamada toddobaad waa 3 meelood oo ka mid adduunyada ayaa go'i doonto. calaamada toddobaad waxaa go'i doona dhulka ay adceeda ka soo baxdo. wadamo badan iyo ummado badan ayaa la waayi doonaa. calaamada 8aad dhulka galbeed ee adduunyada ayaa go'i doona. wadamo badan iyo dad badan ayaa la waayi doonaa. calaamada 9aadna waxay tahay waa jasiiratul carab. sidoo kale dhul iyo wadamo badan ayaa la waayi doonaa oo go'i doono. calaamada 10aad waa naar ka soo bixi doonta cadan gunteeda, waxayna dadku ku aruuri doontaa banka qiyaamo. haddaba daawadahayga 10ka calaamadood ayaa ka soo horeeya saacadda qiyaamo. ilaahay hayna badbaadiyo. rabbi subxaanahu wa tacaala haynaga dhiga kuwa guulaysan doona maalinta aakhiro. rabbow inaga dhig kuwa harsan doona harkaada maalin uusan har jirin ilaa harkaaga maahane. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.